Tawaariq ICT Solutions waa shirkad ka shaqeysa teknoolojiyadda khaasatan ICT sector-ka. ICT sector-ka qaybo fara badan ay ka kooban tahay. Shirkaddu waxay ka dooratay in ay ka shaqeyso saddex muhiimadood in ay xoogga saarto. Midda koowaad ah in ay ka shaqeyso software development oo ah shirkaddu in ay iibiso software ayada ay sameysay engineer Soomaaliyeed iyo khubaro Soomaaliyeed ay sameeyaan. Tan labaad in ay ka shaqeyso waxa ay dhahaan network and security oo ah in bulshada Soomaaliyeed ama institutionska Soomaaliyeed laga qabtiro networking-ka iyo isku xirka aaladaha teknoolojiyadda la isku xiraayo iyo sidoo kale security-ga in xoog la saaro. Tan saddexaad oo shirkaddu ay ka shaqeyso waxa waaye in ay shirkaddu iibin u sameyso ama ay dib u iibiso agabka teknoolojiyadda khuseeya khaasatan network-ka wixii khuseeya security wixii khuseeya iyo sidoo kale waxyaalaha khuseeya domainiska iyo hostinada adduunyada hore ee u sameysay shirkaddu aysan privilege-keedu uusan ku jirin inay ka shaqeyso. Adeegyadaas marka ilaa saddexda qaab u kala baxo ay shirkaddu mid walbaba gudaha wax fara badan ay u sii gelisay. Tusaale oo kale marka la joogo software inay shirkaddu sameyso process badan uu leeyahay qaab badan loo sameeyaa, laakiin inay shirkaddu diyaarisay softwares predefined ah oo hore sector walbaba shirkaddu ay wax uga diyaarisay qiyaastii 30 software ayaa shirkadda jira oo SaaS ama software as a service ah kaliya ay macaamiishu ay ka qaadanayaan kan ku habboon. Hadday noqoto sectorka waxbarashada wax badan ay ka diyaarisay, hadday noqoto sectorka caafimaadka, hadday noqoto sectorka dawladda, hadday noqoto sectorka accounting-ka iyo business-ka, sectors fara badan ayay solutions aad u kala duwan u diyaarisay. Solutions-kaas waa wax ayada shirkaddu research garayso, baahida iyo requirement-ga lagu dhisayna ayada shirkaddu ay study garayso, kadibna ay common platform ay u diyaarisay bulshada. taas waxay suurtagelinaysaa in affordable price ama qiimo macquul ah oo adeeg ku soo baxo meesha haddii qofka asaga kaliis wax loo sameeyo ay ka yar badnaanayso. qaabkaas waa qaab ka mid ah waxyaalaha shirkadda ay u diyaariso softwareska. sidoo kale waxay sameysaa in qofka baahidiisa si gooni ah loogu talo oo sida shaatiga harqaan marka tagto kale lagu tulayo adiga aad sheeganayso baahida nooca rabto business requirement-ga la imaanaysaa team business analysis kula shaqeynaya sidaas la mid ah waxa markaas ayada hadana lagu sii xijin doonaa business ama software analysis-ka lagu sii xijin doonaa product management ahaan ayaa waxa loo diyaarin doonaa UI UX-kiisi iyo wixii designing-kiisa khuseeyay ayadoo iyo quality assurance-giisa aan laga tagaynin. sidaas ayuu product iyo production-ku uga soo baxaya finally marka wuxuu noqonayaa product adiga kugu tolan kugu habboon hadba maxay hada baahida aad sheegatay ku base garaysan. kaas markuu ka duwan yahay SaaS platforms uu ka duwan yahay uu ka yar cost badan yahay, laakiin dhinaca kale faa'iidadiisu wuxuu qabaa in adigu uu ku habboon. duruufo badan ayaa riixaya ISO waa halbeeg caalami ah adduunyaduna globalization ayay noqotay. qofka ama audience-ga shalay meeshuu ka ahay Soomaali uu ku koobnaay kuma koobno oo international ayaa dalka imaanaya. Soomaaliya ayaa international aadaysa, customer-adii ama maxay ahayd Soomaaliyeed ayaa baxayo dibad aadaya, kuwa dibad ka imaaday ayaa dalka ku soo laabanaya. tan labaadna mar walba vision-keenu wuxuu ahay in aan dadka Soomaaliyeed aan mar walba u keenno waxa standardka adduunyada ka jira oo qofka Soomaaliyeed uusan noqonin qof buush ka soo baxay qof maxay ahayd si oo hooseysa ama dunida sida u shaqeynaysa si ka duwan u nool uusan noqonin. oo tusaale maanta markii software uu rabo qofka inuu sameysto in ay jiraan halbeegyo noocan ah, in ay jiraan process noocan ah oo competitor-ka ama qofka kale ee la midka shirkadda Tawaariq ICT la midka ah in uu ka fiiriyo ay tahay adeegiisa iyo wixiisana macna u yeelaya inay tahay inaan qofka Soomaaliyeed barno ku soo kordhino deegaanka iyo dalka ku soo kordhino wax noolaga dayan karo, wax shirkadaha nala midka iyo kuwa naga dambeeya iyo kuwa naga horeeyba intaba ay ka faa'iidi karaan. runtii waxaan is dhihi karnaa ISO standard wuxuu shirkaddu u horseedi doonaa number 1
trustiga in awiraan nalagu kalsoonaado shalay anagoo dadaalaynay oo wax qabanaynay oo harjadaynay in maxay ahayd mararka qaarkood qofku uusan ogeen waxa gudaheena ka jiro inuusan ogeen laakiin hadda ay noo fududahay qofku inuu na fahmo processka amrayn uu yaqaano oo process caalami ah waaye waa workflow ama procedure qofku uu easily uu heli karo waaye hadduu xataa xafiisyada imaado uu dhihi karo processka amartaan waa noocan waaye marka qofku marka wuxuu heli doonaa shirkadana ay u keeni doontaa fursada marka hore ka dahnaay caqabad far badan oo laga yaabo mararka qaarkood xataa adiga haddaad wax fiican samayso mararka qaarkood haddaadan aadan helin shaati kale oo aad isku dhereriso ama la ekaysiiso ama ugu yaraan mastarad haddaadan soo qaadanin mararka qaarkood waxaa laga inaad u aragto waxaan inay yihiin wax gaabis ah marka waxaan isleeyahay shirkaddii wixii ay soo sameynaysay ayay dabalgarayn doontaa waxna lagu aamino oo dadku ay noo qancaan ayay noqon doontaa ayadaas bis ma ahane wax walba waan isleeyahay halbeeg iyo macna dunida ka jiro deegaanka waa keeni doonaa insha Allah taala